kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ciidamo hor leh caawa fiidkii ka dejiyay degmada Doolow ee gobolka Gado. Axmed Madoobe ayaa qorshe weyn ka damacsan ciidamo caawa u geeyay degmada Doolow ee gobolka Gado. ninka lagu magacaabo Maxamed Lafey oo ah gudoomiyaha gobolka Gado ee u magacaaban Axmed Madoobe oo loo ballan qaaday xil sare. waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa xilka loo magacaabi doono Maxamed Lafey oo ah ninka Axmed Madoobe u qaabilsan gobolka Gado. dhinaca kale Cumar Maxamed Cumar Finish gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo degmada Ayraahda deegaanka Mirinaayo ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ka siiyay guri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya ayaa la qorsheeyay in dhawaan dalka uu dib ugu soo laabto. waxaan halkaan kula wadaagi doonaa soo dhaweynta nuuci ugu sareysay oo Muqdisho ka soconaysa iyo xubno sarsare oo ku biiraya xisbiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markale habeen wanaagsan daawadayaal aynu ku bilowno. saacadihii ugu dambeysay degmada Doolow ee gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka socda dhinaca magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamadan oo la sheegay inay yihiin kuwa ka amar qaatay Axmed Madoobe ayaa ku sugnaa saacadihii ugu dambeysay aagag muhiim ah isla markaana la dejiyay saldhigyada waaweyn ee degmada Doolow laga difaaco. ciidamadan oo hubkooda loo dhameystiray sahadooda ciidan ayaa caawa saldhigta degmada Doolow ee gobolka Gado. Axmed Madoobe ayaa qorsheynaya in deegaankaasi uusan ka bixin gacantiisa oo si weyn deegaankaasi u ilaaliyo iyadoo marba marka dambeysay halkaasi ciidamo uu Axmed Madoobe soo dhigayo. dhinaca kale Maxamed Lafey ninka lagu magacaabo oo ah gudoomiyaha waqtigan ee gobolka Gado ayaa maalmaha soo aadan loo magacaabi doonaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Maxamed Lafey oo ka soo dhalaalay shaqadii loo igmaday ayaa iminka la qorsheynayaa inuu u magacaabo xil sare Axmed Madoobe. waxaana warar soo taraya ee sheegaya in loo magacaabi rabo wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Maxamed Lafey oo nin deegaan ka soo jeeda gobolka Gado ayaa Axmed Madoobe si weyn u ammaanay shaqadiisa isagoo shaqooyin kala duwan Axmed Madoobe oo ka damacsanaa gobolka Gado. Maxamed Lafey gobolkaasi uu ka qabtay. Maxamed Lafey ayaa Axmed Madoobe si weyn kaga shaqeeyay ciidamo aad u fara badan oo gobolkaasi laga qoray kuwaas oo u dagaalami doona Axmed Madoobe isla markaana difaacaya degmooyin ay ka mid tahay Doolow iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gado. xaaladdu iminka ma wanaagsan daawadayaashan aynu jecelnahayow waxaa ay soo tarayaa in ciidamo cusub dhinaca dowladda federaalka dhinaceeda ay ku soo dhooweyso deegaanaan ka fogeen degmada Doolow ee gobolka Gado iyadoo Axmed Madoobe sidoo kalena aad u sugay deegaankan istiraatiijiga ah ee muhiim ku ah Axmed Madoobe. hore Axmed Madoobe waxaa ciidamadiisa laga saaray balad xaawo tuulo aamin iyo deegaano kale oo muhiim ah. haddii Doolow laga qabsado waxay meeshaas ka caddahay in Axmed Madoobe gebi ahaanba uu isaga bixi doono deegaanada farakutiriska oo kaga sugan yahay gobolka Gado. dhinaca kale waxaa magaalada Muqdisho ku soo food leh madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dal ka maqan in ku dhow 3 sano oo xiriir ah marka laga reebo safar kooban oo dhawaan ku yimid dalka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya in dalka dib ugu soo laabto. haddaba waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya abaabul aad u xooggan iyo soo dhaweyn nuuciisa ugu sareysay oo siyaasiyiinta ay taabacsan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka sameynayaan magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Cumar Finish gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mid ah xisbiga Nabad iyo Nolol ahna saaxiib dhow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasri weyn ka kireynaya xaafadda Mirinaayo ee degmada Kaaran ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka uu dalka dib ugu soo laabto degi doona aagga Mirinaayo degmada Kaaran ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo laabashadiisa ayaa ka dhigan in xaaladda siyaasadeed ee dalka mar kale ay ka casnaan doonto kadib markii ay dhowdahay waqtigii siyaasiyiinta ay sida weyn
uga lolami jiraan xilka ugu sarreeya ee dalka. maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii xilka u baneeyey 2022 wuxuu dalka isaga baxay isagoo aan qayb ka qaadan siyaasiyiin ka soo horjeestay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo iminka talada jooga in ku dhow 3 sano iyo dheeraad. maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya mar kale inuu u tartamo xilka ugu sarreeya ee dalka xilli Xasan Sheekh Maxamuud ay u harsantaa wax ka yar 1 sano. mucaaradka ayaa si xoogan u abaabulaya kulamo culus iyadoo dhawaan uu fashilmay shirka u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay. Shariif Sheekh Axmed shir jaraa'id uu qabtay maanta wuxuu ku sheegay inuu kulanka u dhaxeeya madaxweynaha iyo mucaaradka uu fashilmay. sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo hogaamiyaha mucaaradka wuxuu dhaliilay weerar lagu qaaday dadka shacabka ee degan xaafadda Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. sidoo kale wuxuu dhaliilay in dowladda Soomaaliya ay ku faanayso in magaalada Muqdisho ay ka saarayso kooxda Al-Shabaab isagoo in dowladdiisa ku meel gaarka isagoo hogaaminayay in Al-Shabaab ay dalka ay ka saareen. sidoo kale Shariif Sheekh Axmed maruu maanta hadlay wuxuu sheegay in doorashada dalka socota ay sanad doorasho xor iyo xalaal ah oo dowladdu ay si loogu talagalay u wado.